السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام دمان أصحابتي قالقة. أصحابتي قالقة سيتهين ما في عنتهين من نبات قبتين إلهي إذن كيسو وإذي رجينا مركز أدونك جوكتان إيسو دواذا نوسو دواذا خيري فرحل سو دواذا إسكو سو نقد كلا أو وناكسن أقيارت شربت له وماموانا إيا مركله إيا channel كاني ماموانا إيا صاحبة قالقة أغيارت شرفت لأمل كستو أدونك جوكتان welcome كسو دواذا برنامجكي كفائدي سو طبيبك welcome عيد الله غير بدني فرحان إلهي إنو ذا ويدي دمانتن هيه ما شاء الله dhiirigelinta iyo sii daada iyo su'aalaha iyo wixii la qabo dhan wax ka sheekaysan doona intii aan ka sheekaysanana allah barakeeyo fadlan iyo sabra kaligay leewaay hawsha ugu badan tahay far kaligeed fool ma dhaqdaa la dhahay marka welcome isku soo noqod kale wanaagsan khayr allah isiyo programka si boota haddaan la si boodin aniga jidkan laba ka dhigayaa koraa idinkaga jeedayaa programkii ku qoran tahay ka faa'iideyso haddaan laga faa'iideysanay waxaan leeyahay ummadaan uma baahno soo hadduu qof walba qofka kala xasdo ani adika la idiin adeega so ta ii howl fudud waa aragteen soo maasha allah soo dhawaada welcome khayr iyo farxad soo dhawaada meeshan waxaan ku hayaa saliid essential oil iyadana qolka way soo galaysaa qalanjaluul bismillah soo dhawaada rag iyo dumar waa la isticmaali karaa linka diyaara idinta insha allah saliidi waatana waa essential oil saliida kale waa ku darsan kartaa kaligeed isticmaalaana ku dhiilaa muddana ka warsug maxay u fiican tahay saliidan waxay u fiican tahay daamanka ama goomanka inta ka gaduudan sanka dhinacyadan dhafoorada kalarka ka halaabay afka eeriyadiisa kalarka wada halaabay dhuunta kalarkeeda madoobaadka yahay ama dark color hypigmentationka laakiin inta badan hanaanka wajiga so essential oil oo wajiga qurux ka dhigta waaye insha allah wixii nabara ma ogi taas goonideeda waaye laakiin waxaan nabar ahayn oo maqaarka gudihiisa uu ku haysatid haaro way u fiican tahay saliidan rag iyo dumarna waa la isticmaali karaa haye markaa isticmaalaysidna insha allah cusub tahay tii hore waa iga dhamaatay wax yar aa ku harsan intii hal mar kuu qaado gacantaada ku shubo wejigaaga oo nadiif ah saas ugu dhibaaso gacantaada den labada gacmood saas isku marso den wejigaada ku masaajeyso insha allah marka saliida linkeeda meesha idiin gelinaya ilaahay idinkiisa enjoy waa essential oil waana saliidaha wejiga quruxdooda soo celiyo markay noqoto haaraha wejiga programmo badan ay idin soo wadaa laakiin aniga ulaboocan ku taaganahay programmada ma siboodin anigana waa ii jeedin waa daalanahay saaka 5 aan shaqo u kacay marka anoo saas u daalan aan idiin adeega marka haddaadan programmada dhan la siboodin breegan soo wadaa breega idinka qaadanaya insha allah programka ka faa'iideyso linka waa idiin diyaarina isla markiiba waxaan dhinaca ka gelinayaa hadduu ilaahay ku roon yahay youtube-ka haddaad member ka tahay dabiibi dadaalne qolka qalanjaluul ka qaado waxaa inoo tusayaa doolkan ama bombaladan for example waaye insha allah marka soo dhawaada kheyri farxada soo dhawaada haddii wejiga bil walba nabro cusub ay soo boodayaan oo wax koosgaray aadan aqoonin fadlan soo baara caafimaadkaaga laga yaabay cilad inay ka jirto ovaryaha ciladaasoo loo yaqaana PCOS ama polycystic ovarian syndrome haye nabraha cusub waaye ee kasoo baxa wejiga oo dhan nabraha kasoo baxo isha korkeeda ama isha haadkeeda cholesterol iska soo baar symptomka lagu yaqaano high cholesterol level ayaa ah inay nabra meeshan kasoo baxaan indhaha agagaarkooda gaduud hadday tahay ay daamanka gaduud noqonayaan ama madoobaad intaas humaag ay gashay beerka waa xaggiisa ama caloosha waaye bakteeriyada caloosha iyo beerka ay symptom u tahay iyo also markuu hormoonkaaga baaba'ayo marka please hormoonaadkaaga soo baar insha allah beerkaaga soo baar sidoo kalena thyroidkaaga soo baar
haweenkoo kale inta badan markuu hormoonkooda xumaanayo saasoo noqdaa. Mararka qaarna markii uur la yeesho ayay daamankaas gaduud noqdaan. Markaa umushana makaa tagayaan. Dadka qaar wuu ka ba'aa, dadka qaarna ma ka tago pigmentationka wejiga. Marka saliidda waxay kaa caawinaya inuu skiinkaaga nadiif noqdo, laakiin fadlan waa inaa cunno nafaqa la qaadataa, cuntooyinka jirka nuurkooda soo celiyo, qudaaraha of course u badan waa inaa qaadataa haddii aad awooddo insha Allah inay dhib kugu ahayn. maxay tahay kale wadwadka jirka iyo qaas ahaan wejiga iyo ogaashadiisa markii la dhaqaa xoog ha u dhaqin, waayo maqaarka jirka wejiga wuu ka nugul yahay maqaarka gacmaha ama korka ama oogada kale wuu ka nugul yahay. markaa wejiga dhaqaysa si gentle u dhaq, wax wejiga u fiican ku dhaq, adoo soo dhaqatay oo nadiif ku yahayna saliidda isticmaal insha Allah. okay, saliido kale ama nafaqooyin kale ee hanaanka quruxda u wanaagsana inoo soo wada hadduu ilaahay ka raali noqdo. afkoos hadduu gambaleelka ku furan yahay mar allaala markaa wax soo geliyo waa arki kartaa, dabadeedna u soo roor ka faa'iidayso. ayaantan programka idii bilaabo waxaa la yidhahdaa siida maxaan ku rahdaa su-aalaha oo ayaa naga maqnaa ama waxyaabaha su-aalaha la weydiiyo way badan yihiin insha Allah waa soo gelin doonaa. kanna waxaa la yidhahdaa ka faa'iidayso, dadka reer dabiib nafaqooyinka lala sheergareeyo waaye ee nafta ku naashanaashaan adiguna kasii faa'iidayso. haddii program juhdi la geliyo oo nafaqa lagu diyaarina uunan ku ahayn wax muhiim agtiina ka ahayn oo dad yar un ay siboodaan, waxay noqonaya inaan gadaal ula noqdo heer dabiib bas aan gooni iyo gaar ugu diro. idinkan iga raali ahaada, waanada meesha ka baxda un ku ekaada. marka programmada hala siboodo is not funny, dadka meesha jooga ee programmada la socdo somehow way ugu kacsantihiin. haddaa idinku kacana waa la calaacala waxa le maamwaane ka daa naga roono. please and please and please last level aa taaganaa programmada siboota, otherwise waanada iyo goorku ilaahay iga soo qaado qofkii ku anfacdana Allah u barakay. of course meesha muhiimadeedu waxay tahay dhiirigelin iyo waano. nomo nafaqa aan ka hadlayo, nafaqada si private ay ku bixi doontaa ama dhiirigelinteeda channelkeedii aadi doontaa, waa ku kala qabnaa. soo dhawaada kheyr farxad la soo dhawaada programmada aan idiin diyaariyo oo waxtar kale oo weliba nafaqada wato. fadlan wixii su-aale ee quseeyo inta aan idinkaga adeegay ha ahaato. sida haddii aan ka ilooba ilmo looma mari karo way weydii kartaa, ilmo muu mari karaa ha iyo maya kumankiina kugu soo qoro waa dhici kartaa. waxa aan ku dhaho rag iyo dumar waa laysla isticmaali karaa, yar iyo weyn. saqiirka waad ogtihiin markaste nafaqo gooniye leeyihiin, waayo maqaarka saqiirka uu ka nugul yahay. marka caqligaada ka shaqaysay meesha meel dad waaweyn waaye, wax walboo soo gala saqiirka looma mari karo ama lama siin karo. laakiin rag iyo dumar in warka la waadixiyo waaye. ragguba daamanka way ka madoobaadaan ama kalarka wejiga wuu ka bedelmaa, qaas ahaan nin kalar furan ama nin kalarka cadaanka xigo ama casaanka xiga hadduu yahay wuu ka qaldami karaa. sidoo kale hadday dhacdo cilada ninkuba inuu caloosha xoogaa bacteria ku wato ama constipated markasta uu yahay caloosha taagan tahay, ama hormoonka ragga uu istaba mareen, ama high blood sugar uu soo wado oo dhiig macaan soo wado ama dhiig subag uu soo wado. ciladaha dumarka ka qabsada jirka ama quruxda iyo hanaanka wejiga way ka qabsadaan raggane. raggaba bidaaraa gasha waad ogtihiin, afka safaaraha thyroidka in lasoo ogaado waay. raggaba xanuunaad way la kulmaan, hadday tahay dhiig macaan, hadday tahay keliya xanuun, hadday tahay fatty liver ama subaga dhiiga, cilado way la kulmaan. raggaba caafimaad laa siiye, sida annagaba aan uga daba orodno wax walbo dhuudhuujin ayay raggana ugu baahan yihiin. haddii arrimaha infertility dumarka ay ka cawdaan, ragguba way leeyihiin male infertility. so weligaa be aware haddaan nin tahay caafimaadkaaga ugu bacdal duco insha Allah. arrinkan waa idiin diyaariyay insha Allah, linka meesha hoose kala baxa. waa wax u fiican quruxda wejiga maadaama ay dhaladu yar tahay. saliido kale ee xoogaa roon ee boodhiga qurxiya inoo soo gelina, laakiin tan wejiga uun ku ilaashada insha Allah. haddii idinka dhammaato oo u bogtaan qaada, haddii aa awoodid sawir si aad isku barbar dhigto intay kaaga dhammaanayso. I think bil camal inay ku haynayso. markay kaa dhammaato sawir kale iska qaad, dan sawirkii iyo sawirkan isbarbar dhig. haddii wejiga nabrihii ku yaalay ama gadgaduudkii ku yaalay ama haarihii ku yaalay ee khafiif sii noqonayaan, mid kala dalbo. taas markaa dhammaysatid tu kala dalbo. wad ilaa 3 bilood ilaa 6 bilood. haarahaasi dabiici haddii jirka uga baxaan
alxamdulilah muraadkaaga waa heshe. Sidoo kale cuntada quruxsada, gabdhihii qaata fitamiinaad, cunto fiican, wax lagu dhaqdhaqo ama wax la mariyo oo wanaagsan, reverse badan ay sameeyeen ama gadaal badan ayay uga noqdeen ciladihii ka haystay jirka. marka waa kaasahee hadday nabra jiraan ama daal wejiga uu haysto amaba ma aragtay humaag uu fuulay, da'dii waa socotaa laakiin daryeelkii waa muhiim. dad badan waxaa jira da'dooda inay ka yar yihiin loo maleeyo. dadkaas maxaa waaye dadka problem la-aanta ah, ilaahay baryo, nafaqo qaato, si fiican oo dabiiciyana u dhaqdhaqo wejiga ama oogada. allahna la garab galo dhammaan. insha allah saliidan mar dhow ayay ku jirtaa qadka, ka fiiri boxka hoose. gabdho badan oo waxaa jirto aan xataa luuqa iska dhahnay programka ka faa'iideyso, ma aragtay haa mase boode, not really. So wax kale maaha programka haddayna cidu si boodeynin ani waqti ma rabi inaan ku dhumiyo, simple. marka programmada si boota insha allah noo duceeya, qof walba halkuu ka ciilan yahay allaha ka ciiltiro. khayr allah isiihee dhammaanteen way nooy adeega kale hadduu ilaaha yiraahdo, adeegan ama saliidan ama nafaqadan insha allah waa inoo iyo hadduu ilaahay ka raali noqdo teeda kale insha allah. of course adiga iyo jirkaagana way ku xiran tahay. wejigaaga hadduu xoogaa sizekiisa small yahay 3 dhibic camal aa u baahan tahay ilaa iyo 4 dhibic. hadduu wejigaaga xoogaa roon yahay ilaa 5 dhibic 6 dhibic, laakiin it depends adiga inta ku qoydo. way gacantaada markaa ku shubto gacantaadii baaba ooman, markaa gacmaha isma marisid waa dhammaanay sax. soo xisaabtan inta adiga wejigaaga ilaa iyo qoortaada, dhagahaada gadaashooda kulli qoydo waaye. haddii marka intaa si fiican u marsatid aad dareentid dhalaalkaaga inuu kuu soo noqonayo, waa u qabtaa dabiibkaada, kasii faa'iideyso. good luck hee khayr badan iyo farxada ilaahay noo wada weydiina dhammaanteen. walaalaha ila soo xiriira fadlan fartiin wanaagsan, salaanle, magacaaga leh, da'daada leh iyo danta aa leedahay iyo reeb insha allah waa kuu soo gelina adigana cod faahfaahin arrinka ay weydiisa haye haddaad aniga gaari gooni iigu baahnayna kasii faa'iideysa janalka insha allah waa inoo dhiirigelinta kale hadduu ilaahay ka raali noqdo. cafi iyo caafimaad ee wax walbo idinkugu adeego, tala tusaale nafaqo, ilaahay idin barakeeyo. koraan idinkala socdaa insha allah. dhiirigelinta dhankiina hadday gaabiso taydana ha filanin, waana ku kala qabnaa salaan sare. salaamu calaykum dhammaantiin waa idin salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.